anaga aan kula talinay markay talada yimaadeen war waxaan yiri howlaha Soomaaliya u yaala ee qabyada ah ciidaasi ka badan yihiin waa security transition jiro linka raba inaad amisom kala wareegtaan mas'uuliyadda oo aad dhistaan ciidan Soomaaliyeed oo muunad qaran leh oo Soomaaliya dhan ay ku dhantahay oo gobolada dhan ay ku dhan yihiin oo qabaa'isho dhan ay ku dhan yihiin oo laga heshiiyo structure-kiisa iyo sida uu dhisan yahay iyo number-kiisa iyo waxa uu qabanayo hadda xasuusataan hadii kalaba inta akhrisaba dawladii rayidka ahayd ciidanku waa ka madax banaanay siyaasadda bas ina ogaatiin way xariyo ku jira ciidanka sagaalkii sano rayidka la aha ciidanku waa ka madax banaanay siyaasadda dadka civilianka ah oo sida hadda wadamadan ay joogtaan ka soo ciidanka xariyaha kuma jiro saasoo kale un bay ahayd laakiin ciidankii markuu soo galo 20kii sano ciidanka talada dalka hayay waxay dishay waxa la yiraahdaa waxa dhintay institutionka kaliya ee Soomaali u harsanaa ee professionalka aha ciidanku waa asagiina 20kii sano la dhintay sababtoo ciidan qabiilo noqday oo baaliil kala raacay hadda marka waxa loo baahan ciidankii in dib loo see loogu dhisayaa heshiis siyaasadeed asaas u ah yaa heshiiska siyaasadeed hogaaminayo waxa adduunka loo yaqaan stakeholders yaa stakeholders maamul goboleedyada xisbiyada baarlamaanka siyaasiyiinta dawladda intaas oo dhan stakeholder waa in laga wada hadlaa sidii loo dhisi lahaa ciidan Soomaaliyeed oo mida oo awood 10 sano ciidan Afrikaan oo meesha jooga kala wareega waa qodob dawladda looga fadhiya waxa looga fadhiyaa dawladda in dastuurkii laga heshiiyo oo awoodda dawlad goboleedka uu leeyahay iyo midda dawladda federaalka ay leedahay laga heshiiyo la xadido in saddex nidaamkii doorashada in la hirgeliyo oo dalkii nidaam doorasho iyo qof iyo cod laga hirgeliyo see loo hirgelinaya dhulkii shabaab haysta waa in shabaab laga xoreeyaa ko dawladda maalmaha dhan waa iska ilowda xataa adabiyaadkeeda iyo hadalkeeda iyo hadalhaynteeda shabaab kuma jiro hadda bileela soo dhaafay waxa moodaaba inay iska iloweenba oo u soo jeesteen dad kale ee goboladii iyo deegaanadii iyo siyaasiyiintii dagaalkoodii inay u soo jeedaan moodaaba la iska iloobayba shabaab hadda si fiican u dhageysta bil ku celiyo khudbooyinka ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha ama xukuumadda shabaab kuma jiraba waana wixii ugu darnaa ee Soomaaliya rabay in la qabto waa iska iloobeenba taas marka maxay keentay maadaama awoodii baahsan tahay xukunkii hal gacan uusan ku jirin oo kala yaalo waxa la yiraahdo sovereignty-ga waa divided sovereignty-ga Soomaaliya macnaheedu madax banaanidu waa divided goboladay taala dawlad federaalka ay taala powerful waxa la yiraahdo constituents beelaha ay wali gacanta ugu jirta waxaas oo dhan in la soo aruuriyo awoodii dawladnimo meel la isku geeyay la raba oo amisomna aan iska bixino dastuurna oo nahago waxaan u soconaa saas waay taas marka maxay ku imaan kartaa inuu qofka hogaamiyaha noqdo consensus builder qof dhisaya ijmaaca bulshada dhisaya inuu noqdo la raba waxa kale oo laga rabaa inuu yaqiinsado inay wadanka ka jirto wax la yiraahdo isla gudoomin co-governance 275 xildhibaan oo ku dooratay oo sida lagu keenay aan ognahay macnaheeda maaha ina mandate u haysto dalka ina adiga awoodiis ku takrifasho maaha macnaheedu sababtoo awaaba ognahay sida xildhibaanada ku imaadeen xildhibaan deegaankiisa tay karaan ma jiro oo ku noqon kara waxa marka waxa loo gudbayaa waa doon meel yar loo gudbay hadaa moodo marka gudubkii ina awoodii dawladnimadii adiga haysato waa lunsanta midaas waa midda inay soo qeyliyaan maamul goboleedyada oo ogtii hadda kortay Kismaayo ku shireen ay sameysteen dalada maamul goboleedyada dadka waxa laga yaabaa markaas inay dawladda la jireen ay aaminsanaayeen maamul goboleed inay qaldan yihiin laakiin maamul goboleedyada qatar ay ka digayeen haddana waata shirka isugu imaan rabaan leeyahay war hey say meesha maxaa ku soo kordhay dadku waxay la yaabanay madaxweynihii kan ka horeeyay ee talada wax ka siinaya maamul goboleedka ee miiska wax ka fadhiisinaya la yaabanay war waa dad Soomaali ah hadda ka hor wiil u ololay qoliyaha dawladda wuxuu yiri wasiirka arrimaha dibadda waxa yimid isheeg Britain wadanka marka madaxweynaha kaligiisa qaabilay awal madaxweynayaashii hore waxa la qaabili jiray maamul goboleedyada la qaabili jiray marka hadda arintii waa isbedeshay ko waa isheekay nin siyaasi waayo xildhibaan qoladan taageersan marka waxaan ku dhahay okay fine wasiirkii ma iska tagaa ayri ma la socda markaas هو تجي وزيرك ما تجينا عيل إلا باركو قابلنا مع الجولات هذا مركو حافي عن هذا عيري مدحوينها هي نسلا قابلنا ها الله هرتي زحمه بك شيء كراني أو بك حشوانه ويران صوما
laakiin hadduu keligiis qaabilo kiina laboor ku qaabilo waxay rabaan ay ka sheegi karaanba war nimankan filosofigooda xukunkaaba qaldanba sida ay xukunka u fahamsan yihiin Soomaaliya isla guddoon iyo in la raadiyo ijmaac ummadnimo lagu wadi karaa taasna waxay u baahan tahay fabima rahmatin min Allah ilaahi muxuu yiri linta lahum linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك waxaa rabaa Soomaali maanta la yinay u baahan tahay hoggaan dadka isku raadinaya u baahan tahay hoggaan dadka kala dilay uma baahna hoggaan waxay u baahan tahay consensus iyo compromise ku shaqeynaa sababtoo awood gacan ku uma jirto marka gadaashaada fiirso adoo madaxweyne oo aragta askari amisom ku ilaalinayo oo Afrikaan ah marka aragto subaxi madaxda international community safiirada ay ku imaanayaan noodka ay ku reebayaan marka fiiriso Mr President lagu leeyahay sorry marka aragto dawladihii dariska ahayo ammaanka wadankaada ilaalinay oo xuduudii ku wada dhex jira marka aragto beesha caalamka iyo Brussels ina waxa macaawanada ka raadinaysa ka toogsanaysa ay tahay see intaad u labisato iskula qabweynaa kartaa Soomaaliyan ayo ana qatar u dhigi karto ma badii kartid waaba qofaan ba xaaladda ka warqabin ba runtii waaba qofaan ba xaaladda ka warqabin war waa lagu hareeray